laakiin masalada aan iri waa bannaan tahay ma ahan dulsaar ma ahan ama waxa la yidhaahdo reento oo ma aha waxa la yidhaahdo waa fixed price waa qaymo go'an marka waxaa mushkilad qofka uu u arki karayaa inuu yidhaahdo okay ninkani gaariga wuxuu ku dartay ribadii ayuu ku daray asalkiisa markaasuu iga iibiyey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خارشرت الله البركة مولو بأجوكتان الموضوع حاجر عن صوت دوبي عن كجهد لا بابورت أو ربا لغوغت مركا فيديو جاس أيا وحان قد هاي بابورتا متك كلية أو لغدا كارو أو ربا لآن وطيوتا إيغا إلهي كسوكو نوفو دينو قف مسلم بابور قطو عن كجهد سؤال واحد كسو الله بتا maxay isdhaantaa markii arrinta tahay fast trend macnaha waxaa loola jeedaa markii percentage lagu saarto oo ribo ah marka ma magacaa dhib leh macnaha inaa ribo la dhahay oo rento lagu magacaabay ama interest in lagu magacaabo maa dhibka keenay marka su-aashaas ay ka soo laabatay ayaa waxaan ku celiyey sheekhii su-aasha kuwaad ka jawaabay oo Toyota arrinteeda ka hadlay asagana wuxuu soo celiyey jawaab muwaafi ah oo qof kasta fahmi karo laakiin waxaa rabaa in hal wax aan ka hormariyo taasoo ah markii la joogo baabkan buyuucda ama beeca iyo arrimahaas marka laga hadlayo diinta islaamka waa baab adag kitaabkaas waa kitaab qofkas aana fahmi karin taas waa tusaale waxa u bixiyaa way kugu adkaa kartaa markaad dugsi hoose dhiganaysa inaad fahatid dugsi sare wax loo sharxayo lagama wado maxaa la dhahayay aqligaa lagaa badan yahay ma lagaa badanna ma ah waxa laga hadlaa waxa waaye adigana laga yaabo in aadan fahanka ama maxaa la dhahay aqoonteeda waayo shayga markaad dhex geshid markii details laga hadlaa ama markii aad loo kala dhigo oo daqiiq shayga uu yahay way adagta inuu qofkasi fahmo marka hoos wax loo dego marka arrinta kor leh maaha marka la joogo baabuurta oo riba lagu gato lagu gadan fahankeeda percentage fast rent miya ma aha maxaa ahayn marka insha allahu tacaala war badan yaan igu dilin sheekha wallahi wuxuu sameeyey jawaabtu hadda idiin daari doona insha allahu tacaala waa jawaab waafi ah oo qof kasta fahmi karo aad u jilciyo insha allahu tacaala saasaan isku ognahay dhegeysta biidnillahi tacaalana jawaabtu weli meesha la joogaa Toyota kaliya ayaa haynaa inta kale waxay saartaan fast rent ama fast interest waxa dhahay rate-ka percentage la saaray adinka sheekhan kana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد dadka waxaa laga yaabaa aan aqoon fiqiga dhaqaalaha islaamka iyo habka uu u shaqaynayo aasaasku sida uu yahay waxaa laga yaabaa in masaasha qaarkood ku wareeraan ama inay isku mid yihiin ay u qaataan waxaa la yidhaahdo ribada iyo ganacsigu aad bay meelaha qaar isaga eg yihiin laakiin qofka oon aqoon fiqa u leh baa kala garan karaya saa darteeda gaaladu ay yidhaahdeen inama albaycu mithlu riba iibkuba iyo ribadu waa isku mid waxay ka wadaan ribadana faa'iida laga helaa iibkana faa'iida laga helaya marka ilaahay wuxuu yidhi wa axlallahu albayca wa xarama riba ilaahay beeci waa xalaaleeyey ribadana waa xarimay isku mid ma aha ribadu sideedaba waxa weeyaan waxay ka imaanaysaa qofkan inaan la siiyo deyn la siiyo waxaad ogtahay qofka baahani ama faqiirka ahi wuxuu u baahan yahay haddii deyn la siinayo ixsaan ina loo sameeyo aan la sii dul saarinin xoolo kale awal buu tacbaan ahaa marka deyn buu u baahday isagoo faqiir ahay baa faqrigiisii lasii kordhinaya koox yar oo dabaqa yar baa xoolaha qabsanaysa ayaa qaadanaysa dad kalena masaakiintana dhiigooda la miiranaya marka waa dhiig miirasho ribadu sideedaba marka saa darteed shareecadu ay u diiday xoolaha in maaragtay lacagta iyo waxa lamid aho ribada noqda inay ganacsi galaan oo inta la deymiyo qofka dulsaar la saaro ma aanan oran marka gaarida iyo habka lagu iibiyaahi wixii ah deyn oo wax la dul saaray waa xaaraan hal karoon ba had la dul saaro haddii la rabe si aad u sheegtay laakiin masalada aan iri waa bannaan tahay ma ahan dulsaar ma ahan ama waxa la yidhaahdo reento oo ma aha waxa la yidhaahdo waa fixed price waa qaymo go'an qaymaha go'an qofku aad wax ka iibsanaysa ama shirkadda wax ka iibsanaysa waa inay kaaga iibisaa fixed price kaaga iibisaa
fixed price waxa macnaheedu waxaan uga jeednaa lacag inuu ku yidhahdo gaarigaani waxaad ku bixinaysaa daily tolling laakiin lacagtiisu intaasuu joogaa isbedel ma laha rente lama saarayo marka waxaa mushkilad qofka uu u arki karayaa inuu yidhaahdo okay ninkani gaariga wuxuu ku dartay ribadii ayuu ku daray asalkiisa markaasuu iga iibiyey mathalan meeshuu joogay 50,000 ayaa wuxuu ka dhigay 60,000 uu ka dhigay so 60kan kuna reentadii aan IRR u bixin lahay soo ma ahan waxaa maya taas mushkilad ma laha waxa weeyaan qofka xoolaha leh sideedaba xoolihiisa qiimahu rabo ku iibin karaya backgroundkiisa wax uga dambeeya muhiimadu ma aha qofka waxa dhici kara guriga ijaar buu ku jiraa xoolo badan baa ka gala waxa dhici kara shaygan inuu iibiyo 10,000 mid kale shayga laftigiisii isla wixiiba wuxuu iibinayaa ma garanaysaa 5,000 buu iibinaya ama 6,000 maxaa yeelay qarash kama gelin waa nin banaankaas wax ku iibsada wuxuu doono gogosha maaragtay ijaar ma bixiyo koronto ma bixiyo shaqaale ma bixiyo waxba ma bixiyo marka lacagtii buu ka jaray ama waxa weeyaan wuxuu iibiyaa batrool buu iibiyaa mashiinku waa automatic uma baahna shaqaale midna waxa weeyaan shaqaale ayuu lacag siiyaa markaasuu ku xisaabinayaa maaragtay qarashka markuu wax iibinayo almuhim qofku xoolaha uu leeyahay ama shirkad ha noqoto ama qof ha noqoto intuu rabo iibin karaa xor buu u yahay laakiin waa inaysan noqonin maaragtay dayn uu ka faa'iido oo lacag dul saarto oo lacagtaas ay tahay joogto la kacayso ribada wadanka la kacaysa lana degaysa ama riba nooca doonto ha noqotee waqti aan ku dheeraynaa adiguna maaragtay lacagtaasaa dulsaar ku saaraya taas ma la ogola waxaa la ogol yahay wax go'an in lagu heshiiyo intaas shaygan intaanuu jooga okay intaanaad bixinaysaa IRR bixadaa doonaysid beecu taqsiid aad bixisid marka waa fixed price saasaan u joognaa barakallahu fiik asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu